رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد العار ee gadan khudbadeedii wuxuu yiri nimanka haweenka iyo caruurta iyo hantida isku gubaya qiilan ku sii dhowrano waxaadina aan iska qabanno qiil damba maharin iyo diinto lagu qaraabtay miyuu yiri warshirka ra'iisul wasaaruhu ka hadlay wasaaradda haweenka soo abaabushay oo Khadiija Maxamed Diiri horamiyay hawsha u gashay war Khadiija dawladii hore intii ay jirtay waxay dhihi jirtay libax laba maahan markii aratay dabeesho dhinac kale uu sii wareegaysana waxay tiri daanyar laba maaha markay gaxamsa shabeel laba maaha miyay ku tiri maroodiyada waaga dhiman warwarka ku soo boodinine Khadiija wixii haween baladka joogay isu keentay waxayna tiri ciidanka dagaalamaya oo nabadiidka dalka ka horeynaya garabkoodan taagana war gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Saacadiya Samatar waxay tiri rag iyo dumar dagaalka in loo kala haram maaha war ninka kadaal soo la qadir ay gambada haqaatamiyay tiri war gooyin war ma haysaana dagaalkii ka dhacay dawlad deegaanka Soomaalida raggii geesiyaasha ah ee shabaab meel iska saaray gabdhii xulka ahaa bay guursadeen war madaxweynaha Ukraine baninkii noo dagaalamaya lacag iyo guri iyo gabadh baan siinaynaa buu yiri war marka xaaladu xun tahay gabar geesiyaa gaya war aniga baabkaas oo dhan waa ka bootiyay doorashadii Kenya waa lagu kala baxay Uhuru Kenyatta leeyahay kuwaan waa murmeen adigu iska hayso war baabuurkii weynaa Raila Odinga warqadaha ku raray maxkamaddu ma akhri karno miyay tiri war guddi waraqaha akhriya miyaa loo xil saaray war dad falanaatiin waxna leedin ma sheegi kare maxkamadii go'aan ay soo saartay waxayna tiri madaxweynaha sharciga ah ee Kenya waa William Ruto asagana doorashada ku guuleystay tiri nabee wali marooti waa u gashay hayehe waradeega Raila Odinga madadka qaaday naw war itiraafkii Soomaaliland ee Raila soo siday imika masadaas ku saqiiray war ma haysiine doorashada Kenya nabadii nolol ku guuleysatay taageerayaasha nabadii nololna waxay dhaheen maadaama William Ruto Abiy Ahmed saaxiib leeyahay baraadarkeena leewaay ariyadaha waxaan maqli jiray hadduu yimaado saaxiibka asoo la socdo saaxiibkii waa saaxiibka kale salaam war William Ruto doorashada koob markii la yiraahdo ku guuleystay madaxweynaha hore farmaajo qoraal buu ugu hambaliyay madaxweyne Xasan telefoon buu kula hadlo uga hambaliyay kadibna William Ruto yaabay wuxuu yiri baa la yiri anigu yaabay Soomaaliya meeqa madaxweyne leedahay war hambaliyadii lafta gareen iyo qoorqoor iyo Axmed Madoobe ma gaarin miyaa war Ruto war la'aana hayse hadduu laba kaliya la yaaban yahay lix kalaaba u dhiman war maanta Raila Odinga yaa wajigiisa arkay oo xaaladiisa war ka haya ma areysna because guul darro doorasho aabiis ka dhaxlaaleeyay oo waligiis ma malxiis madaxweyne u haaraya war Dingiyoonay rooti Michel Jeli ana kiina la jirnaa kiinaga jiraan ka jirnaa warkan ha qasinine Kenya si sharci cadaalad ah lagu kala baxay waxaana cadaatay garsoorkeeda inaan laga daba hadli karin war Kenya garsoorkeeda lama soo magacaabo miya oo garsoorka Kenya madaxweynaha iyo ninka mucaaradka miya u siman war xantu waxay sheegaysaa madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo shalay madaxtooyada ka guuray Raila Odinga la safnaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya haweeneyda inuu casho ku casuumay oo ay ka diiday macasharkii rooblay qaadad war kus lacagaha loo dhiibi rabay Raila Odinga in loo xukumaana laga shaqeynayay war nasiib darana ma lacag madaxweyne ku sii haya la diidaa war dadkaasi damiir ay leeyihiin lacag waa qaadashana laga ma yaqaan war dadkan damiir lahayn baa dalkooda iyo dadnimadooda iyo mustaqbalka ubadkooda iyo mas'uuliyadoodaba xaraashe lacagi qiimo ma leh war hadda doodii doorashada Kenya sidaas ay ku dhamaad ariyadaha Samiday Abdulla waxa uu yiri hoo anaabu nin eelqooda cidna ka sheehayn cuulees anaabu nin eelqooda cidna ka sheehayn cuulees war ma haysaana Kenya waa laga weyn yahay dawladda Ingiriiska ra'iisul wasaare cusub ay yeelatay maanta Boris Johnson noo geeray war Boris Putin oo eedaa leeyay war corona lagu eedeeyay xaflado qabtay la lahaay miyuu isku xasilay war inaga kuwii lacagta corona cunay ayaa xildhibaanayno noqday mar ra'iisul wasaare dhanba xilka looga qaaday shir yar oo u qabtay shaqaalihiisa xilligii corona war waxa soo kale xil looga tagay Soomaali badan ku nool Ingiriiska ama ay ku banaan baxeen ay mooshin ka keeneen war Soomaalida u gafinine ra'iisul wasaarihi hore Roble xilna ma doonan xafiiskana waa baneeyay warkan hanaga qasinine Ingiriiska waxa ra'iisul wasaare loo doortay haweenay la yiraahdo Liz Truss war stress sheegaysa talow Soomaaliland ma aqoonsanaysa war Truss mayna waa ogaayay Ingiriisku Truss badana war gabooso Truss ka aqoonsi raadiska
ingiriiska istarays inay idinka saari u malayn maayo. war haddii ingiriiska dumar ra'iisul wasaare ka noqday awalna boqoradu dumar ahayd aawa xuquuqdii ragga. axmedow hadda qoondadii ragga miyaad raadinaysaa? wararta waxaan idin weydiiyey hadday gabari madaxweyne noqoto ama sida ingiriiska oo kale ay ra'iisul wasaare noqoto saygeedu muxuu noqonayaa? warna miyoonin warsigay leeta fasimaamo ingiriisa war odagii koobaad oo ummaddu noqonaya. war mudanaha koobaad leh. warwar mahaysin ra'iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid wuxuu yidhi muddo kororsiga maamul goboleedyadu wadaan waa qalad dowladda aamusnaanteeduna waa qalad kale inay ka hadli weysana kalsooniday dhuminaysaa uu yidhi. war cumar cabdirashiid waxa kale uu yidhi maanta haddii dowladdu axmed madoobe ka aamustay berri haddii qoorqoor iyo dani muddada kororsadaan maxay sheegeen? warwar mahaysiine wasiiradii maamul goboleedyada wasiirkay eedeeyeen waa la kulma. war dadka xogogaalka waxay leeyihiin waxa dhan ay u qaylinayaan waxay ahayd lacag ka timid bangiga adduunka oo qaybtoodii laga siiyey ayay ka dhimanaatay in yaroo shaqaalo loogu tababaray. waayahay waa laydin sii hay sabra miyaa la yidhi handhoolo gubusdhonga gorade weereena. war wasiirkii hore maaliyadda Beyle oo arrinta wasiirada maamul goboleedyada wax laga weydiiyey wuxuu yidhi nimanka markii wax loo waayo madaxaan u salaaxi jirnay markii wax la helana madax salaaxa iyo waxsiintaan isugu dari jirnay marka muddadii koobneed oo wasiirka cusubi joogay ayay malaha madax salaaxi waayeen buu yidhi hadda inay ismaqashiiyaanna way ku qasbanaadeen baan filaya. war Soomaaliya sidan dhaqan maaha dhibaatada dalka ka dhacaysana waad u jeedaane waxa la isku qaqabsanayo iyo waxa yaalaana waa kala weyn yihiin danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya